waxa noo dhisan oo Ethiopia sameeyay ama ku farxa ma ka naxa maamulada noo dhisan Ethiopia dhisatay jabhadii wadanka dugiyay ka soo jeedaan jabhadu ma garbay hadinay baxaan ma yahayn miya ma way ka faa'iideysatay maanta waxa noo dhisan laba maamulo ka soo darisa isma arki karaan laakiin mid walba Ethiopia uu calaw furay hubka way ka soo iibisa sadaqo ma siinayso markay islaayaan isaga iyo maamulka kalena meydka waa isku tirsataa yaa loo shaqeynaya waxaan ka shaqeynaynaa wax la yiraahdo xarbul hajiina dagaal isku dhaf ah amaba se hybrid war waxa la yiraahdo si kale marka loo yiraahdo waxaan ka shaqeynaynaa fourth generation war ma ka shaqeynaynaa oo dagaalka hore wuxuu ahaan jiray baa la yiri dagaalka geesiyaasha oo laba nin baa intay service soo qaataan ama mid meedkiisa laga soo tagaya xilligu ku xigay wuxuu ahaa dagaalkii fulayaasha buu ahaa oo waxa la sameyn jiray baa la yiri in qori inta la sameeyay geesigii fuliga isnaadeen oo geesigii oo meel marahay fuligu madaxa ka tooganayo dagaalkii saddexaad wuxuu ahaa al-harb bil wakala qoladii saysan bal soo wakiilanaya ayagu ma kula dagaalamaya cadawga isgaari meysaan fourth generation war wuxuu yahay cadawga ishaysaan inaad isaga intaad isku dirto shaqadii adiga aad qaban lahayd isagu u qabto oo isagu iska laayo waxa adigu ka leeysan dhibka ma haysan mise ma haysto nacam khilaafaadka jira kala booditaanka jira laba isdagaashan baa baxaya midna xaq u diyaarad ka raacaya midna halkan buu ka raacaya Ethiopia Addis Ababa la soo tagay xagga marka la tago waxba isma dhigi karaan halkan marka la tago wala isqabiil caayaya nacrada la iskala daalaya waxaas marka soo wax in laga weeraado u baahan ma shabaabka qaati billahi laga taagan yahay waa gacantii labaad ee bal sanaawi uu sameeyay weey waxaan isku haysanaa yaa xabashi soo galiyay xamar iyo yaana soo galinin Ahmed Abdi Godane baa ciidanka dagaalka galiyay markii dambana isaga ka soo baxay ayadoo ay u tahay gobol xaar ah waan cararaya isoo ciirsada meesha ku dambeysana wada naqana wadanka marka bala ku shaqaysanaysa waxa la is weydiinayaa meeyo dadkiisi nin cadaan ah oo tababaray ciidamada asluub ayaa waxa uu yiri dalkan dadkiisi baan doonayaa waayo anigu ajnabi baan ahay wax walba la iga filan karaa shaqadu waxay fiican tahay markaan anigu joogo markaan tago waxaan ficiliyay baa la haleynaya marka waxaan is weydiiyay dalkan ma ana u la jecel badan mise dadka kan aan doonayo inaan ku caawiyo dadku inay dalkooda hagaagsadaan taariikhdeena tiirarkeeda iyo muqawamaadkeeda waxa kamid ah inay Ethiopia naga leedahay damac iimaan la'aan oo inooga gardaran tahay odayaal baa naga celin jiray dad reer baadiye baa naga celin jiray koow damaca noocaas ma dhamaado way jiri jiray yaani siyaasadda adduunkana waa uu jiraa annagu damaceeni aawo oo aha in siday noo damacsan tahay si lamid ah inuu damacno oo aan iyaga gacan la galno adduunka maxaa ka jira meesha la Mareykan ama jamhuuri ha noqdo ama dimuqraadi ha noqdo wax la isku waafaqsan yahay oo uu soo qof u dhaafi karin ninkii madaxweyne ah oo meesha yimaado waa inuu Israa'iil ilaaliyaa oo meesha uu ku hayaa Ethiopia wasaas mingiste waxa meesha ka saaray bal sanaawi laakiin markii Soomaaliya la soo fiiriyo shaqadii mingiste uu hayay isla malas baa tagay xayla baryam disaar xayla baryam baa yimid shaqadii uu hayay malas buu hayay ilaa intuu madaxweynuhu u tagay oo cabasho loo geeyay waxa yimid ninka la yiraahdo hadda meesha mar haya waaran baa yimid shaqadii malas iyo shaqadii kuwii ka horeeyay buu hayaa waana ka sii daran yahayba indagu marka su'aasha isweydiinta waxay tahay aaway hadafkeeni aaway risaaladeeni aaway wixii naga dhaxeeyo habal la iskhilaafsanaado hal kala qabiil duwanaade Ethiopia ku wajahnameeye ugu dambeyntii manihin ummada maanta dhalatay Ethiopia nooma dhaxeeyo xeer dhul isku siiyay iyo badal isku siiyo waxa naga dhaxeeyo waa maxay markii damac uu soo galaba in la yureeyo la iska celiyo barteeda lagu celiyo marar badan bay dhacday taariikhdii ku suntantahay laga eegi karaya waxa isweydiin la marka Ethiopia hadafkeedii iyo mowqifkeeda ma bedeshay indhaga keenna maxaa bedelay taasaan u baahnaa inaan dib isugu laabano